kulanti wacan saaxiibayaal meel baa joogtaan magacayga waa khaliiji waxaa jirta asxaab qaar oo iga soo codsatay in aan video kasoo sameeyo broseska ama nidaamka maangelyada wadanka Jarmalka sidaa darteed waxaan jeclaystay in aan video kasoo sameeyo Asylverfahren in Deutschland oo ah nidaamka ama broseska maangelyada ee wadanka Jarmalka videogan waxaan kaga hadli doonaa qofka xaq u leh inuu wadankan imaado sidoo kale broseska qofka oo marayo markii wadankan ku cusub yahay iyo ugu dambeyntii sharciyad noocee ah ayaa ka jira wadanka Jarmalka oo qofka hadii uu interviewgiisa ku guuleysto sharci noocee ayuu heli karaa hadii ay xiisanaysid daawasho wacan qaybtan ugu horeysa waxaa ka bilaabayna saaxiibayaal horta yee tahay qofka maangelyada helaya sida ugu jeedaan qoraalka Asyl ist in Deutschland ein von der Verfassung geschütztes Recht. Maangelnimada Jarmalka waxay ka mid tahay sharciyada dastuuriga ay ka mid tahay sidoo kale Menschen die aus anderen Teilen der Welt vor Gewalt, Krieg und Terror fliehen sollen hierzuland Schutz finden. Dadka ka soo tahriibaya wadamada kale oo ay ka jiraan rabshadaha, dagaalka iyo sidoo kale argagaxnimada waxa ay ka heli karaan meeshan amaan haddii si kale u fasiro haddii wadan oo ka jiro dagaal ama rabshado iyo waxyaabo kale la mid ah oo qofka jaanis kale oo meel kale kaga noolaad oo sanaysanin qofku wuxuu xaq u leeyahay in wadanka Jarmalka oo maangeliyo ka dalbado maangelnimadaasna ma ahan waxa iska samaysanay waa wax ayaga dastuuri u ah oo qofka xaq u leeyahay in oo maangeliyo weydiisto haddii wadanka asal ahaan oo kasoo jeedo ay tahay wadan rabshado ka socdaan ama dagaal oo ka jiro sida wadanka Soomaaliya oo kale marka haddii aad wadankaada ka soo tahriibtay oo aad soo gashay wadanka Jarmalka waxa aad maraysaa 10 marxaladood oo kala duwan waana marxalad oo qof walba oo hore Jarmalka soo galay iyo kuwa soo gali doonaba ay mari doonaan marxaladahaas maxaa ka mid ah marxaladda koowaad Ankunft und Registrierung oo micnaheedu tahay micnaha imaashaha iyo diiwaangelinta maxay tahay imaashaha iyo diiwaangelinta imaashaha iyo diiwaangelinta waxay tahay haddii oo qofka imaado waa in meelaha liska dhiibo oo taga qofka si tusaale ahaan kaamka oo kale qofka waa inuu kaamka tagaa isla markaana markuu meesha imaado qofka waa in diiwaangelin lagu sameeyaa oo magaciisa iyo da'diisa laga qoraa ama da'diisa guud ahaan laga hayaa markii qofka oo imaado kaamka isla markaana magaca laga diiwaangeliyo oo laga qoro proseska labaad u gudbaya oo ah Erstverteilung der Asylsuchende waxa jirta oo ah qaybinta koowaad qofka tusaalaan ka soo qabo gobolka Bayro kaleetada kaam ku yaala tagtay oo dhahday meesha iska diiwaan gelisay maalinta koowaad kadib isla marka Bayern waxay xaq u leedahay inay systemka fiirso oo ay gobolada kaleetada kala Jarmalka ku xawisho ayagoo san wax fara ka qaadin ayagoo san wax interview ka qaadin iyo wax walba kugu sameyn bay xaq u leedahay in ay gobolada kaleetada kale ay ku xawisho sidoo kale waa joogi kartaa darabto hadana way ku xawili karaan marka waxa waay marka Erstverteilung baa la hadaa Asylsuchende qofka markuu san kaam u soo galo oo magaciisa laga qoro iyo da'diisa iyo waxyaabo kala mid ah waxa leeyahay okay adiga waxa waay isheeg waxa lagu xawilaa gobolkaas kale kale aad tagaysaa ama kaamka noocaas kale kala tagaysaa marka waxa la Erstverteilung der Asylsuchende marka taas qofka la xawilo kadib waxa waay qofka markaas wuxuu tagayaa markaas Zuständige Aufnahmeeinrichtung kaamka markaas adiga oo ku qaabilsanay baa tagaysaa marka hadii oo qaybta kuwaad laga soo xawilo inta badan dadka qaybta marka hore laga xawilo qaarna waa la xawilo qofka nasiibkiisa ku xirantahay marka hadii oo qaybtaas laga sii xawilo qayb saddexaad ay imaanaysa oo ah markaas kaamka adiga oo xaq u lahayd oo aad degaysid ayaa tagaysaa oo marka kan mid kale kuma sii xawila inta badan oo kaas ayaa joogaysaa inta proseskaada ka dhamaanayo marka Zuständige Aufnahmeeinrichtung kaamka adiga ku qaabilsan marka imaadid proseska ku xiga marayso xitaa marka waxaad dalbanaysaa marka persönliche Antragstellung sameynaysaa oo dadka waxay u maleeyaan inta badan qofka markii oo kaamka imaado in oo maangeliis dalbaday maya haddii kaamka imaaday oo lagu diiwaangeliyay waxaa jirta maalin caadi ah oo lagu balaminayo oo qofka maangelido dalbanayo waa maalin dadka farax laga qaadayo isla markaana interview koowaad Soomaali qaarna waxay dhahan interviewga 24 su'aal dhahan soo marka waa maalinta qofka faraha laga qaadayo ayaa qofku wuxuu sameynaya markaas maangeliyadiisa dalbanaya marka maalintaas marka maangeliyada dalbato oo proseska afraad ah qofku wuxuu u gudbayaa proseska shanaad oo ah markii faraha ka qaadaan dawladda waxay sameynayaan Prüfung des Dublin Verfahrens yani waxay jeegaranayaan micnaha
in aad wadan kaleetood oo Yurub ka mid ah aad fara soo dhigatay markii maalinta interview koowaad faraha laga qaado datadadan laga aruuriyo waxa systemka laga fiirinaya markaas in aad wadan kaleetood oo Yurub ka mid ah aad soo gashay caad ahaan way ku weydiinayaan haddii aad hore u sheegatay waa arka okay way haddii aadan sheeganin awood waxay u leeyihiin in ay systemka ka baaraan oo ay soo helaan wadan kaleetood kalena iska soo dhiibtay inaadan iska soo dhiibin oo wadan kale fara ka soo qaaday waxyaabo kaleetood la mid ah markii la soo jeegareeyo Dublinkaaga iyo inaad wadan kale inaadan imaanin waxa qofku u gudbaya marxaladda lixaad oo ah persoonische aanhouding oo ah inta badan Soomaalidu waxay dhahaan interviewga weynka ay dhahaan oo waa interviewga dadka oo lagu weydiiyo sababaha wadankooda kaga soo tageen dhibaatooyinka wadanka kala soo kulmeen haddii wadan kale oo Yurub qofka ka yimaadana sababta oo wadankaas u joogo waay ama wadankaas oo kaga soo tagay iyo waxyaabo kale oo la mid ah marka waa interviewga ugu weynaa waa kan lixaad oo qofka lagu go'aaminayo go'aanka ay ku gaarayso dawladda micnaha in qofkan oo u qalmo sharci la siiyo iyo inuusan u qalmin marka waa processka lixaad waxaa jirta marka qofkaas markuu ka dhameeyo wuxuu u gudbayaa processka toddobaad oo ah Entscheidung des Bundesamts in waaxda u qaabilsan qaxootiga immigrationka ayaa go'aan ka gaaraysa markay ku wareystaan oo interview ka qaadaan faraha Dublin la soo ogaado maangelidii aad dalbato kadib bay qayb toddobaad waxay go'aan bay ku gaarayaan markaas oo ah in sharci lagu siiyo iyo inaan sharci lagu siin iyo sharciga lagu siinayo nooc oo yahay go'aansanayaan kadib markii ay Bundesamta soo go'aansato ama BAMF soo go'aansato kadib waxaa imaanayso Schutzform ka imaanayso marka qofka muxuu Schutzform u leeyahay siis banaanba sharciyo noocee ayaa jira siis banaanba hoos qaybtan ku xigta ayaa ku sharxi doonaa sharciyada oo qofka xaq u leeyahay in uu helo marka Schutzform ka imaado qofka marka qaybta sagaalaad oo markii ay Bundesamta go'aan ka gaarto isla markaana Schutzform ay ku siinayaan salaan sharciga ay ku siinayaan oo kale maangeliyada yahay mid qaxootiga oo yahay oo kale nooc oo doona ahaado haddii ay gaaraan qofka marka qaybta sagaalaad marka asiga ay xaq iskale oo ah Rechtsmittel gegen die Entscheidung haddii go'aanka ay ku siiyaan aadan ku qancin waxa xaq u leedahay marka inaad go'aankaas ka dacwoosid marka inta badan waxa waaye 2 isbuuc gudahooda markii ay warqadda ay Bundesamta ku soo dhacdo ayuu qofka xaq u leeyahay in oo dacwad ka keeno ama haddii uu ku qanacsan inuu qaato haddii uusan ku qanacsaneyn in oo dacwad ka keenso ama loo ka qabsado ama asiga toos marka hore u tago maxkamadda isla markaan oo dhaho okay aniga go'aankan ay Bundesamta siisay baan rabaa in aan dacwad ka keeno waan kuma qanacsani haddii qaybta markay dhamaad kadib qayb tobanaad ayaa loo gudbaya oo ah Ausgang des Asylverfahrens oo ah marka waxa dhamaanaya markiiska maangelida dhamaanaya haddii oo sharci lagu siiyo kiiskaaga waxaa la wareegaya oo sanad hodiga la wareegaya ama qolada immigration oo dadka ajaanibta qaabilsan ayaa la wareegaya ee magaalada degan tahay oo ayaga ayaa sharcigii Bundesamta ku siisay baasaboorkiisa xaq u lahayd bay ku siinayaan haddii oo sharci lagu siinin ama diidmo lagu siiyana waxa bilaabmaya markaas processka oo ah in qofkan meesha ka yimaado dib loogu celiyo ama haddii wadankiisa dib loogu celin karin xal kaleetood kale ay Bundesamta u raadiyaan marka 10kan qodob waaye 10ka qodob oo qof walba oo qaxooti ah ee wadankan Jarmalka soo gala oo mara kow inuu kaamka iska diiwaan geliyo oo tago haddii waxaa laga yaabaa in kaamkaas koowaad oo tagay in laga transfer galo ama laga xawilo oo kaamka kale loo xawilo oo sishtan qayb saddexaad loo sii xawilo kaasoo ah kan qofka qaabilaya kadib qofka afraad uu soo gudbaya oo ah in qofka oo maangeliyo dalbado oo maalinta faraha laga qaadayo oo ah maalintaas inuu maangeliyo dalbanayo tan shanaad oo ah in qofka Dublin verfarenkiisa la soo baaray marka faraha laga qaado kabacdi inuu wadan kale Yurub oo imaaday lixaad in qofka interviewga weynka laga qaado oo lagu go'aaminayo go'aankiisa toddobaad go'aanka Bundesamtiga sideedaad nooca go'aanka oo yahay ayaga sharciyada waxay keen hadda sharxi doonaa iyo haddii sharcigaas aad ku qancin dacwad ka keenin kartid iyo ugu dambeyntii inuu soo gabagabo oo haddii sharci lagu siiyo oo aad sanad bahodiga ama qaybta ajaanibta qaabilsan aad sharciga ka xariisanaysid haddii diidmo lagu siiyana ee ku bilaabmaysa qaybta oo in wadanka haddii ay Yurub wadanka ka yimaaday in wadankaas dib lagu celiyo haddii wadankaaga aan lagu celin karin in xal kaleetood kale ay ku raadiyaan intaan waxaa processka qofka oo marayo markii wadankan uu soo galo Jarmalka inta marka waxaa dhaafisan qofka marka interviewgiisa dhameysto waxaa jirta marka BAMF bishad waxa la BAMF waxa loo soo gaabiyay Bundesamt für Migration und Flüchtlinge loo soo gaabiyay oo dacwad go'aan ka soo baxay jirta marka waa qaybta inta badan xasaasiga ah marka oo dadka Soomaaliya inta badan aad ugu wareersan yihiin dadka qaar waxay ku leeyihiin passport blau dadka qaar waxay ku leeyihiin passport grau passportka blauga iyo grau color ahaan ka yihiin labis laakiin
waxa muhiimka waxay tahay in sharciyada gudaha ku qoran loo kala qaybsamay caadi ahaan sharciyada ay bixiyaan business amtiga waa 4 qaybood laakiin qayb walba absats waxa la si kala baxbaxo oo aad 2 3 4 taasna macnaha qof luqad jarmalka yaqaano ma garan kare waxa garan karo qof ku takhasusay sharciyada wadankan ka jira sida sharciyada oo qaxootiga kale waxaa jirta Grundgesetz Asylgesetz Aufenthaltsgesetz qayb badan jirta marka qof luqad yaqaan bis kuma filna waxaan Soomaaliinta badan qof luqad yaqaan inta u tagaan waxaad taqaanay maxay ka wadaan 9 qof luqad yaqaan shaqo kuma laan waa qof waxaan ku takhasusay oo lawyerka ah tusaale ahaan oo kale ama dadka hay'adaha dadka caawiyo oo waxaan hore jaamacada ku soo dhigtay oo kale kuwaas ayaa ka caawin kara in sharcigaaga nooc oo yahay iyo wax ay yihiin ay ku sharxaan laakiin qof luqad yaqaan jumlada meesha ku qoran bis ku fasir kara laakiin sharcigan nooc oo yahay wax ku sharxi kara ama ku fasir kara waxay tahay lawyerka ama qof khabiir u ah waxaan kala tilmaamo mar walba haddii sharciyadan oo kale ah heshaan in lawyer aad kula xiriirtaan ama qof khabiir ku ah sharciyada meesha ku qoran oo aadan qof luqad jarmal yaqaan aadan la raadin maxaa yeelay luqad jarmalka iyo sharciga farqi weyn oo kala dhexeeya marka afartan meesha ku qoran ee sharciyada jarmalka la qaybsamaan intaan kuwan ayaa si kala baxbaxay moogi inta qayb kale ka sii baxsan oo sharci ah ma jirto sadarteed marka qaybta koowaad waxa waaye Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft oo ah qaybtan absastaqayga ah Asylgesetzbuch bay ku qoran tahay oo waxa af Soomaali lagu dhahaa macnaha Soomaalidu waxay inta badan u yaqaanaan kan qaxootinimada oo qofka qaxootinimada loo ogolaado ama baasaboorka bilowga ah qaad qofka soo yaqaanaan marka waa Zuerkennung Flüchtlingseigenschaft waaye ama refugee status ka dhahan kaas waa macnaha oo Zuerkennung Flüchtlingseigenschaft la kan labaadna waxay tahay oo qaybtan kan koowaad meesha ku qoran Anerkennung als Asylberechtigter in qofkan qaxootinimo loo qaabilsan yahay macnaha kan koowaad waxa tahay maangelinimo tan koowaad waxay tahay qaxootinimo tan labaadna waxa waaye maangelinimo Asylberechtigter in qofkan maangelida horta xaq mi u leeyahay asigsiis banaanba in qofkan la fiiriyo okay wadanka ku imaan in Sacuudi ka imaado kale todo kale oo wadan nabad iska joogo oo aan cadays badan aan lahayn maangelimo dalban karo soo marka waa in qofkan dhibaato oo kala imaada wadankiisa ama dhibaato oo soo dhacda si oo Asylberechtigter oo helo ama qaab qaxootinimo meeshan lagu qaabilo iyo mid saddexaad ayadana oo ah Zuerkennung von subsidiärem Schutz subsidiärem Schutz iyo Asylberechtigter xogaayris farqiga oo kala dhaxay oo ah talaan subsidiärem Schutz qofka markuu qaadanayo waxa waaye wadankan qofkan wadan dhibaato ka soo tagay laakiin wadankiisa dib loogu macalin karo dhibaatooyin jira awgeed darteeda wadanka qofkan oo ka imaado dib loogu macalin karo marka waxa waaye qofka wuxuu haysto subsidiärem Schutz haysto waxa uu sugayo waxay tahay ilaa wadankiisa nabad oo ka noqdo markuu wadankiisa nabad noqdo ayaa loo celinaya qofka walba sharci la siyaasadaas waaye markay qaar sharciyada qaar waa 1 sano qaataan qaarna 3 sano qaataan oo macnaheedu tahay hadii 3 sano ka bacdi waxa dib loo fiirina wadanka ka imaado hadii wadanka ka imaaday oo wadan nabad oo yahay oo la isku haleyn karo qofka markaas wadankiisa ayaa dib loogu celinaya marka waa fog kala xitan koowaad waxa maangelinimada tanna waa subsidiary Schutz ayagana oo qof wadanka la celin rabo hadana wadankiisa lagu celin karin oo wadanka dhibaato oo ka jiro qaybta afraad ayadana waxa waaye Feststellung ein Abschiebungsverbot in qofkan gabi ahaan laga mamnuuc in wadankiisa dib loogu celiyo maxaa yeelay maadaama wadanka wax dhibaato oo ka jiro oo wadankiisa dib loogu celin karin in ay Bundesamtiga maxkamadda ay mamnuucdo in qofkan dib loo celiyo asigana yani sharciyo la siiyo laakiin oo asigana suuga mar walba inta wadankiisa nabad oo ka naqanayo ama dib loogu celinayo marka afar sharci ka jirta afartan sharci ah waaye oo ah qaybta koowaad Flüchtlingseigenschaft qaxootinimada kan ah Asylberechtigter maangelinimada kan qofka inuu maangeliyo in kale subsidiary Schutziga iyo Abschiebungsverbot oo ayagana saadiskaga dhow haddii asi kale idinku sheego baasaboorka bilowga dadka qofka haysto waa qofka Flüchtlingseigenschaft loo aqoonsado waa in qofkan oo qof refugee ah ama qaxooti refugee status la siiyay ama qaxootinimo loo aqbalay saddexdan kale waxay ka sameeyeen garaaw baasaboorka la ka sameeyeen oo kan Asylberechtigter la siiyay ama subsidiary Schutziga iyo Abschiebungsverbot dhamaantooda garawga ka masiin marka labada kalar ee laga kala bixiyaa kala ah mid walbana qayb walbana wuxuu leeyahay qaybooyin kala duwan buu leeyahay macnaha oo u si kala baxbaxaan marka xataa waa aragteen markii Auslanda Behodig markuu qof ka tago buugaag ay ka fiiraan sharciyada sadarteed
qofka saxda ah ee ka caawin kara xaqaqa inuu ku soceliyo ma ahan qof luqad Jarmal yaqaana ee waa qof ku takhasusay sharciyadan dadkan ay sameysteen soo marka inta soo gabagabeynaa saaxiibayaal haddii aad u maleysin videogan wax micno ah ku sameeyay like sar inta kulka xiisa badan kulmi doono waa anigu qaliij ah fi amaan Allah